kulankani oo ahaa mid isbarasho ayaa u dhaxeeyay mas'uuliyiin salaadiin odayaal ka soo jeeda degmada Laasqoray ee bariga Sanaag ee Soomaaliland iyo xildhibaano ka socda dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Kulankani oo ahaa qado isla markaana uu soo qaban qaabiyay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland Cali Jaamac Buureed ayaa ka qabsoomay Hotel Sultan oo ku yaala magaalada Hargeysa. ugu horeyn goobtaasi waxaa ka hadlay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliland Cali Jaamac Buureed waxaana wasiirku ugu horeyn ka waramay kulankani maanta dhexmaray xildhibaanada ka socda dalka Jamhuuriyadda Djibouti. aad baan ugu faraxsanahay madaxda Djibouti xildhibaanada Djibouti nooga yimi walaalaha iyaga ah xildhibaanadaas oo maaragtay Jamhuuriyadda Djibouti ka xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha oo arintan runtii gacan weyn ka geystay isaguna bilaabay in reerkii warsangeli oo kala lumay la isu soo celiyo hadda ka horna aniga iyo wasiir kale oo beesha ka tirsan nagu casuumay inaan degaankii tagno oo aan tagnay wabaq tagnay oo aan Khor Cangaar tagnay oo aan Baabul Mandab tagnay oo aan dhulkii dhan soo marnay oo aan Badowtaceelo tagnay oo aan Tojarro iyo wabaq tagnay oo aan ugu tala galay inaan beeshi soo baranno waan soo barannay haddana odayaashii labada dhinac baa la isweydaarin doonaa xagga odayaasha tagi doonaan ee Sanaag bari jooga kuwa wabaq joogaana iyo Djibouti xagga tagi doonaan waa la tirsanayay halkaas reerku joogeen weligeed waa lagu ogaa laakiin hadda waxaan samaynaynaa isdhexgalkii iyo maaragtay isu keenidii baan hadda bilownay ra'iisul wasaaruna oday ugu yahay annaguna aan la wadnaa xildhibaanadina noo yimaadeen. dhinaca kale Cali Jaamac Buureed wasiirka kalluumaysigu waxa uu markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inuu magaalada Hargeysa iman doono ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Djibouti. saaru halku iman doona wuxuu diyaarad ku tagi doonaa Sanaag bari ku tagi doonaa iyo Ceergaabo wuxuu soo baran doonaa tolkii sida qorshu ahaa waxaan ahayn tol isu yimi annaguna markaan meesha tagno Djibouti tagno iyagana soo dhaweeya hadda kadib iyaguna Soomaaliland waxbay ku leeyihiin anaga qaybteedana la leeyihiin. wasiir ku xigeenada wasaaradaha ganacsiga iyo xiriirka golayaasha oo hadalka uu kala dambeeyay waxay iyaguna goobta ka sheegeen raf weyn noo ah inaanu ku soo dhaweyno xildhibaanada nooga yimi dalka Djibouti oo ah 4 xildhibaan annagoo ku soo dhaweynayna shaarka dawladnimo ee Soomaaliland iyo shaar reernimada oo ah iyagoo ah xildhibaano ka yimi dalka Djibouti waxaanu leenahay Soomaaliland waa dalkiinii iyo dadkiinii annaguna waxaanu ka midnahay reer Soomaaliland oo annagu ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku soo dhaweynaynaa annagoo dawladda afkeedii ku hadlayna ku soo dhaweynaynaa walaalahayo ka tirsan beesha waanu xukuumad ahaan odayaal caaqilo baarlamaan ahaan intaba cidii reerka matalaysa ay soo dhaweynayaan walaalaha iyagaas waxa weeye waa nimanka la yiraahdo Tomela asal ahaan waa warsangeli waa beesha Djibouti bay ka yimaadeen xildhibaanadii weeye salaadiintii iyo kuwii kale oo iman doonaan salaadiin odayaal iyo waxgarad inta kadib ayaguna hadlay waxay ilaahin isweydiinayaano oo oran doonaan war nimanka bariga fog jira iyo nimanka galbeedka Djibouti jira waxa isu keenay tolo xagaysaga yimaadeen Soomaalidu reer guuraabay ahayd dhulkay mari jirtay waxaan idin sheegayaa annagu dooniyaan lahayn meesha isaga xidhnaayeen Zeylac iyo Djibouti iyo Tojarro iyo Obokh iyo barigu ilaa Ceelaayo ilaa Laasqoray cadcado muxuu ahaa galweyta dhabqow ceel cadde waxaasoo dhan baa la deganaa jiray Ingiriisku markuu yimi 9 dekedood baa ku yaalay Faransiiskana buuqtu ku qoro 200 oo sanadood ka hor dadku wada dooniyay lahaayeen Laasqoray baa dooniyaha lagu sameyn jiray reer aan dooni lahayn ma jirin marka xiriirku baddu ahaa halkaas la isaga socon jiray xoolaha la kala iibsan jiray geela dooniyaha lagu soo kala dhici jiray xildhibaan ee ka yimi Jamhuuriyadda Djibouti oo sida loo sheegay beelahaan aan ku qaabilay nooguna yimi aanuna ku soo dhaweynay beesha Badowtaceelo anfarta reer Djibouti waa Badowtaceelo waa warsangeli waa Abokor halkaas waa niman harti ah markooda hore dawladda waa warsangeli weeye dawladda waa harti Kombe dawladda waa saasaan ku soo dhaweynaynaa oo si karaamo leh oo sharaf leh u soo dhaweynaynaa xildhibaanada nooga yimi Djibouti oo ah niman badan mateela
ahna niman warsangeliya ahna niman canfara oo halka degan oo aanu ku ogeyn iyagoo niman la yiraahdo Cumraytiba muddo badanna waan raadinayna waa isdoonaynay laakiin oo inuu ka yimid dawladda Djibouti ee ay walaalaha nahay anaga waxba noo dheero nimankan reer Djibouti ha ahaadeene nimankan niman warsangeliya weeyaan badoo tameel la yiraahdaa ninkaan aqoonna wuu sheegaynaa ninkii yaqaanina waa ugu celinaynaa man warsangeliya oo badoo tameel ah waxa u yimaadeen reer Turkood oo Hargeysa jooga si ay u soo bartaan oo ugu yimaadaan xildhibaanadooda iyo dadka kale caadiga ah jooga magaalada weligeed waa la shaqaanay laakiin jiilkan ayaa intii colaad u dhaceen aan la isku gudbin hadba nin taga iyo qof ganacsi taga mooyaane way ahayd mid hore bay ahayd la soo yaqaanay gabbood iyo baasaldhigu ahaa markii halka la joogay iyo ganacsatada iyo warsangeli xildhibaanada ka socda dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa inta kadib ayaguna warbaahinta la hadlay kuwaasi oo u mahadnaqay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa iyo waliba kulanka maanta la qaatay inta ma joogayo waan iman doonaa waa imaantankayga ugu horeeyay shaqada waxa ka shaqeeyay wasiirka kalluumaysiga ee Somaliland Ali Jaamac Faarax iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti Abdulqaadir Kaamil Maxamed maanta waxaan u mahadnaqaynaa walaalaheen daarood ee warsangeli halka si ay nagu qaabileen si ay nagu markaa waxaan ahayn waa laba ehelo inna Djibouti inna dhinaca Somaliland in gablala iyo annaga naga tafirmeen oo xagga bay yimaadeen warsangeligu Eritrea iyo doonidu ka lunto xagga iyay u badnaayeen laakiin daaroodka oo dhan yani xagga waan ku matalnaa tolban u haysanaa Batri Koosar Maxamuud telefishinka Star Hargeysa